baa isku cartado maroodigiina geeduu jijibi atoorkina rakiis waxaan maahe dunduusaaga labadii gees baa kaga hadhay hortaasay aanu leenahay annagoo isdhaliilayna arrintan wadada gacantaananu ku haynay imigana waanu ku haynaa dadaalkeedana waan qabnaa waan haddii la yidhaha insha allah waxaanu leenahay ilaahay ha noo fududeeye tuwaanu ka fadhiinay intaanu imigaba gacanta ku haynay wey inkastuu muddaasi u dhasho hawsha gudanayo mar haddaan u gaashaan lahayn waa waxgoynaya ama guuta loo qaybiyey iyo gaaska daba joogtay inuu gobolka keligii dhashaa waa habeenkooda waxaanu ka hadlaynaa mawduuca maanta waxa weeyaan waddadii balle cabane waxa weeyaa sayla balle cabane sayla dacawaley iyo garabis iyadoo ay waddadu ku taagan tahay fayskeedii hore sayla ku taagan yahay fayskii labaadna aanu qaadi doono maanta oo aanu gaarsiin doono Hargeysa ilaahay waxaan ka baryaynaa in hawsha aynu wadnayo wadada aynu sameynayno ilaahay noo fudaydiyo ilaahay khayrkeeda ina siiyo sharkeedana inaga nabadgeliyo maanta waa maalin weyn horta ilaahay baa weyne waayo waxa halkan isugu yimid saddex gudi oo gudiyada wadooyinka waxaydan ahaa gudidii wadada xashin ka timid balcabana keentay gudidii balcabana la Hargeyso rag iyo dumar u qaybsanto oo waliba dumarku aad u firfircoon yihiin ayaa halkan isugu timid saddexda gudida aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa siiba gudida ka timid dawladda deegaanka ee xashin ka timid oo markii hore annagu intaan halkan ka bilownay iyaguna qaatay nagana hordhameeyay maanta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan imikana aynu ku tibiratana waxa weeye anagu wali geed qaad baan maranaay in horta carrakaawada naga horeysaan daamirkana insha Allah hadii naga horeysaan oo aan intaba socono hadaan intaan dadaalana in badhaafo marka dhammaan ummadda reer Somaliland oo meel kasta ay joogto iyo gaar ahaan dadka deegaanka u dhashay waxa laga doonayaa inay wadooyinka ay maanta magacooda qaateen inay wado walba dhameeyaan ومصطفى أحمد سمكاب تلفزيون عالمي رمت TV مقالة Hargeysa.